karaamaduna waxa weeye wax la yaab badan oo dadka kale aanu haysan marka karaamooyinkay ka mid noqon kartaa waxyaabo badan inuu ilaahay qofka u fududeeyo sidii Khadir ilaahay ugu fududeeyay hadii la yiraahdo waa wali buu ahaa wanaagsan aduma aaminsantahay ilaahay wuxuu doonay inuu bini aadanka ka fulin karo oo adigaaga ku karsin karo inaad duushid ma aaminsantahay oo ilaahay makhluuqaadkan isagu uu sameeyay wax ka bedeli karo warqada u dambeysay su'aasheedu waxay waligu miyuu duuli karaa waligu waa kuma horta quraanka ilaahay noogu sheegay subhanahu wa ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah ilaahay umada uu soo jeediyay wuxuu ala wa harfu tanbih intuu ilaahay umada u yeero baraarujiyo kadib wuxuu leeyahay intuu baraarujiyo kadib waxa uu awliyada ilaahay waa cidda ilaahay uu xil qaaday ee isaga ku dhow cabsi iyo murugo midna dushooda ma saarna labada arimood ee bani aadamka ciriiriga ku hayo cabsi iyo ciil ilaahay labada uu ka dul qaadaa wixii horena kama warwaraan waxa soo socdana kama cabsadaan labadaaba ilaahay baa ka dul qaaday oo saacada iyo raaxo xagga noloshaaba haystaan waligiina ilaahay uu sheego wuxuu waa ka laba arimood laga helay iimaan iyo alla ka cabsi bushaaray leeyihiin adduunyo aakhiraba bushaaradaasina waxa kamid ah inuu ilaahay siiyo karaamaad karaamaduna waxa weeye wax la yaab badan oo dadka kale aanu haysan marka karaamooyinkay ka mid noqon kartaa waxyaabo badan inuu ilaahay qofka u fududeeyo sidii Khadir ilaahay ugu fududeeyay hadii la yiraahdo waa wali buu ahaa wanaagsan sidii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ilaahay u tusiyay colka meel shisha ka dagaalamaya cadawga dhabar jabinaya marka waxyaabo khaariqul caada ah uu yeelan karaa shardiga lagu xirayaa waxa weeye qofkan inuu yahay qof ilaahay ka cabsanaya oo taqwo leh oo aan ku faanaynin amalkiisa iyo cibaadadiisa waligu ma faano laakiin waa mutawaadic isqariya awliyada ilaahay waxa astaantoodu ay tahay inay aad ilaahay isugu dhul dhigaan oo ay yihiin dad aad u xishood badan ilaahay ka xishoonaya umada ka xishoonaya isqarinaya wax awoodiyo itaal iyo acmaal hay leeyihiin kuma faanaan marka kolka astaamaha wanaagsan uu leeyahay waxyaabo badan oo lala yaabo waa lagu arki karaa faalada iyo falceynta aan fiicnayn ka bixiya waana cilmigu ku yaryahay oo u fiirsan doontaan oo waxaan sheegayo bal cilmi ahaan aan u baadhine ma maqlay hayaay maantana sheekh wuxuu yiri waxba ka dhacay macnihi uu ka degdegay intii uu baadhin wararta wax marka la sheego shayga qofkani daliishanayo baraadi daliilki ilaahay maanta cilmigii uu soo fudiyo meel kasta kitaabteed ka helisa meel kasta su'aashiyo jawaabteed ka helisa qofku marka mid waa mid cilmigii aan baadhin iyo su'aashiyo jawaabteedii aan oo ka degdegay midna waa mid markiisa horeba cidda sheegaysa daraadeed macnaheedu ciidiiditaan iyo cidnacayb iyo kooxaysi iyo tacasub sheekh sheegaya sheekhaagi ma waa sheekh koox kale oo aadan kooxaysi mid ku diidan iyo mid cilmi yaraan hayso labadaas ba horta faalooyinka ugu khaldan ama ugu fog ka bixiya waana runtaayoo qisas badan oo doodo badan leeyahay maxay leeyahay waa waaqici iyo dadkii waa culumtii ugu badneed laga qariyay marka cidii dadka ka qarinaysay way diidaysaa in la sheego culumta koow iyadu tacasubka u diidanay iyo cidii cilmiga aan u lahayn waxaana kamid ah qisaska ugu saameynta badnaa taa doolista koow aan maxaa duuli waayay awowgay maxaa duuli waayay waxyaalahaas ka dhalanayay waxa kamid ah maxaa duuli waayay marka warkaas dadka isweydiinaysaa maxaa duuli waayay waxa laga yaabaa inaad toddobaadada soo socdo doono weliba waxaan taa u leeyahay waa hadduu ilaahay ogolaado mushkilad waxa weeyaan war duulista hadduu ilaahay ogolaadaan mar walba raacineen in allah ala kulli shay qadir wadadka waxaad moodaa inay alla rumayntiiba ku sii yaraanayso aduma aaminsantahay ilaahay wuxuu doonay inuu bini aadanka ka fulin karo oo adigaaga ku karsin karo inaad duushid ma aaminsantahay oo ilaahay makhluuqaadkan isagu uu sameeyay wax ka bedeli karo saacada in allah yakhluqu ma yashaa wa yakhtar wa ayat quraan ilaahay wuxuu doonuu abuuraa wuxuu doonuu doortaa abuurista iyo wax ka bedelista ilaahay baa leh waxaan ku leeyahay toddobaadada soo socdo ilaahay duulin kara anigayga bishan soo socdo duulin kara maanta in wada duulin kara rajaynaysaa waa rajaynaya leena maxaa yeelay waa darajo ilaahay